الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسي لبعض كتاب كاني الداء والدواء بإذن الله تبارك وتعالى سؤال بان شلي اسويديني كتاب كان لغو بلابي qofna uu weydiiyey alimaam ibnulqayim raximahullah waxaynahay su-aashaasi qof haddii lasoo koobo dembi ku dhacaya dembigiina aan iska celin karin wax walbana sameeyey muxuu sameeyaa sheekhu jawaabta intuu si sahlan u sheegi lahaa buu kitaab dhan ka qoray kitaabkan oo dhanna taqriiban 200 oo page markuu marayay buu jawaabtii iyuu aaday haddaba waxaad ka garanaysa su-aasha la weydiiyey kitaabku wuxuu uga jawaabayaa uu sheegayaa aatharka ama raadka macsiyadu ay qofka ku leedahay iyo bulsho ahaan intaba ay ku samayn karto haddaba wuxuu keenayaa aathaar badan ama raad badan oo aada u fool xun oo dhibaato leh oo ay ku samayn qofka iyo cuquubaad ka dhalanaya marka kitaabku ma sameynaya abwaab iyo lambaro laakiin markaan daraasaynay waxaan u sameynaynaa calaa shakli inaan lambaro camal u sameyno haddii aan lahaydno haddaba aan qeyb gadugalo macaasida iyo aathaarta ay ku yeelato qofka macaasidu waxay ku reebtaa qofka raad xun bay ku reebtaa jawaabtana ugu dambeynta waa u tegi doonaa biidni illaahi tabaaraka watacaala raadkaasoo dhibaya qalbiga iyo jirka adduunyada qofku intuu joogo dhibaya aakharana ku dhibaya wax ogna ma jiro dhibka uu u geysanaya raadkaasi qofka ilaa ilaahay unba og subxaanahu watacaala haddaba waxaa ka mid a raadka xun ee macsiyada iyo dunuubtu ay qofka ku reebayso xirmaanulcilmi in cilmiga lagaa hoojiyo ood baran weydo cilmigu waa nuur allah subxaanahu watacaala uu ku tuurayo qofka qalbigiisa macsiyaduna iyo dembiguna waxay daminaysaa nuurkaasay daminaysaa imaamu shaafici raximahullah markuu hor fadhiistay sheekhiisii maalig hortiisa uu fadhiistay imaamu maaligna uu ka arkay wiilkan yari wiil caqli badan oo fahmo badan inuu yahay ayaa wuxuu ku yidhi hadal cajab leh إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالظلمة المعصية ويليه وحان أركاه إن إلهي قلبك كتور النور النور كاه كد من معصية مجدجيدة إمام الشافعي رحمه الله باشيخ كلا لهاي وكيع لورنجر مرو لا تشنيي يا وحول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاس أما لا يؤتى لعاس وحانو sheegtay sheekhaygii wakiic la oran jiray in xifdigayga aan duruusta xifdinayo qur'aan iyo cilmiba ay liidato wuxuu igu irshaad wuxuu ii sheegay inaan macsiyada ka tago wuxuu ii waramay inuu yahay cilmigu nuurka ilaahayna qof caasiya lama siiyo buuli sidaas daraadeed maandhow ka fogow macsiyada iyo ka fogow iyo dembiga arinta labaad oo laga dhaxlo dembiga iyo macaasida waxa weeye xirmaanu risqi in arsaaqda lagugu cidhiidhiyo xadiis baana ahaa rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه قفك وحا لغا حرمانيا وحا لغا هوجيا أرزاق ذا يبيلك يمصاريفتا دنبي أوسمية درتي أيا لغا هوجيا هذا عبسيد إلهي وحي سوجي دا رزقيا طيب عبسيد أو لغا تغانا فقري باي كانتا haddaba qodobka saddexaad oo macsiyadu ay keentaay waa waxsha waa inuu qofka caasigii qalbigiisa uu ka dareemo iyo allah subxaanahu watacaala dhexdiisa inuu qaloonayo inuu aysan qaabili karaynin inuusan kalsooni allah ku qabin
taasoo mar walbana hortiisa taagan oon ka go-aynin. haddii adduunyada oo dhan loo soo ururiyana cabsidaas uu qabo oo ah inuusan kalsooni rabbi ku haysanini ka dhammaan maysa qofku. haddii waxaa la yidhaahdaa dunuubta oo laga tagaayay ilaa arrintan in ilaahay aadan ku kalsoonayn keli hadday ka dhalanayso wax kalaba ka dhasheen, iyada ayaaba qofka caqliga leh ku fillaan lahayd. waxaa kamida oo kale waxyaabaha ka dhaclanaya waxsha sidaasoo kale inuu qofku isaga iyo bini aadamka kalena aadan ku kalsoonayn, oodan qaabili karaynin, oo la joogooda aadan jeclayn. gaar ahaan weliba dadka ahlu khayrka ah baa wuxuus arkay qofka macaasida iyo dembiga badan ahlu khayrka isagoo ka cararaya, una cararaya xisbigii shaydaanka iyo kuwii xumxumaa ayuu cararayaa. waxaa sidaasoo kale ka dhalanaya oo qodobka shanaad ah in umuurta oo dhani qofka ay ku adkaato markii dembigaagu uu bato, albaabkaad furis dhahdana uu kugu xidhmaayo, albaabna uusan